marokan haddaad doontay iyo inaan maal heshana ama aad Mozambique tagtiyo maali gurigeeda ama aad masaarida gashood sharaf maalhinayso ama aad Tigray mehersatood mudantiirahaba ama aad Tigray mehersatood mudantiirahaba ama aad Talyaaniga muddaxan Yurub macsuntaba adun bah muraafe dabdi mudanto watinin adun bah muraafe dabdi mudanto watinin hableheena muuqiyo ilaah munadugu deeqay marin dalaalkiyo kuwa midabka nurayo maxabada kuwa lagu tole mawlanagu deeqay maryaniyo mushtaqiyo ano maydaba haysto marokiyo inaan meel taga waa maqruunimaay ragii Soomaaliyeed maalmahan dhamaantood waa safar way socdaan tigidhka la goostay hebel uu baxaya mid baa ku soo wacaya xageen tigidhka hela dhamaan waxay u socdaan Morocco ayaa la qabanaya budget baa halka ka furmay ragii waa heerin dhaqanka Soomaaliga waxa ku maqli jiray mar hore inay jiri jirtay dumar la yiraahdo heerin laakiin hadda waxa yimid rag heerin ah ragga baxayo maxay yihiin sababta u baxayna maxay tahay ragga baxaya boqolkiiba 50 waa inta garaad laawayaasha ah waa inta aanan garan hablaha Soomaaliyeed waxa ay gudaan iyo waxa ay galaan waa dad aan dunida wax badan ka fahansanayn waa dad ma garanaysa laab la kac u dilayo hadda ka hor waxa dhacday mar in Hindi loo yaacay mar kale waxa loo yaacay Tigray haatanna waxa loo yaacaya lagu leeyahay Morocco maxaa la raadinaya waa dumarka iyaga maxaa lagu doorto loo raadinaya waxa dumarka Morocco loogu ordaya ma ahan sharaf ma ahan xishood ma ahan qiimo kaliya waxa lagu leeyahay qiimo raqiis lagu helayaa lacag raqiis ayaa lagu helayaa waa inta kaliya waxa loo raadinay inta u raadisay ma kula tahay adigu markaad aqligaaga miisaanto oo si qof weyn aad wax u garato gabar ay reer ku soo tabceen oo dad ay dhaleen dalkeedii joogto qof iska soconayo oo la garanayn in la iska siinayo ma kula tahay maya suurtagal maahan waxaan filayaa gabdhaha nooca ee dadka la iska siinayo hadii ay bijirto arinka hadii ay bijirto gabdhaha dadka la iska siinayo laba mid weey waa midda koobaad inay yihiin gabdhaha ma garanaysaa ku soo koray xarumaha agoomaha iyo wax nooca ah ee aan lahayn waalidka iyo reer ka dambeeya aan lahayn ee ay dawladda bixinayso waa qodob hadii taasana aysan ahayn waxa jira dhaqan ay carabta leeyihiin carabta inta badan dumarka carmalka la yiraahdo ama garoobka inta badan carabta ma guursadaan waa sida dhaqanka carabta ay u badan tahay laga yaabo inay ku yihiin inta dhan markaad ka gudubto qofkan muxuu raadinayaa afarta qodob oo diinta lagu sheegay midna u dhiman maayo kow gabadha in lagu guursado quruxdeeda gabdhaha Soomaaliyeed ayaa ka quruxsan Marookaanka marka xaqiiqda laga hadlo labo diin uma guursanayo oo gabdhaha waa gabdha wada madax qaawan marka aad inta badan dad madax qaawan bay u badan yihiin uma guursanayo hanti oo ma haystaan waa dad faqri oo waxa lagu leeyahay waa dadka la garanaysa kunka door la doonayo lagu soo jacbursada nasabna uma guursanayaan nasabkooda ma garanayaan waxay yihiinba nasabkooda iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo maxay tahay meel ay ka soo jeedo midna ma garanaya qofka marka soconayo wuu iska indhalaayahay wuu iska soconaya wuu iska ordaya marka anigu waxaan leeyahay Morocco inaan meel taga waa maqruunimo war inaan meel kala aado gabdhaha iyaga sharafta leh akhlaaqda leh asluubta leh ee Soomaaliyeed inta ay joogaan in meel kale aado oo aqligaaga iyo dameerkaaga ku siiyo warde waa maqruunimo waa dulinimo waa aqli gaabni maskax aanan korin way ragga inta baxayna kuma jiraan inta garaadka aqliga oo saaxiibka ah inta malaha ma garanaysa ku haminaysana kuma jiraan kuwa aqliga ee garaadka saaxiibka galabta anoo meel magaalada kamid ah maraya ayaa dhalinyar ba isla hadlaysay mid baa wuxuu leeyahay 2012 ilaa haatan baa wax leeyahay warniyahu guurso waxaan u guursan lahaa buu yiri fursad noocaan oo kale inay mar un soo baxays ayaan ku haminay waa qof raadinaya deemaan qiimo jaban iyo qorshoodan waxa weeye inay meesha bil soo jooga laga soo laabto ma aha nolol sax iyo nolol dhab iyo ma garanaysaa noolaasho ma jirto